السلام عليكم أبي وناكسن صاحب يال ملك ساجوكتان سولو هذا waxaan ku suganahay wadada dabka gaarigan baradada ay arkaysan waxa hadda laga soo dajiyay oo saaraa saaxiib qaaliya oo la taqaanaan oo wajigiisa ay ku soo doono baabajay oo maalmahan aad ogtihiin social media aybta YouTube ka in xaaladii ka jirtay u dhaxaysay isagay wiilo wuxuu ku dhawaaday in la xiro oo xabsi la dhigo laakiin nasiib wanaag markii dambe waa la soo daayay oo xorriyadiisa ayuu helay baabajay hadda wala joogaa baabajay soo dhawow caawa halis baad gashay maxaa sababay hortida arkaysa wada gaarigan aan ka soo degay maqribadii markii aheeda waxa ay imaadeen niman dhalinyaro ah waxay dhaheen arrin baan rabnaa inaan kala hadalno waxa ay xayeysiin waxyaabaha u baahan yihiin markii ay meel geeyeen waxay ii handadeen in arrintii wiilo ay ugu haysteen ee waliba ay jiljireen ay jaakada jag iga siiyeen xataa mid ka mid ah baakoorto jag iga siiyey oo ii ballan qaaday in xabsi aniga la geenayo oo la xiraayo ay waliba qol igeliyeen markii aan u sheegay xaaladda sida ay u jirto aniga wiil inaan dhibaato u geysanin wiil inaan wax ka xadin wiil inaan aniga aan xuquuqdeeda ku xadgudbin wiil inaan xumeena aan u sheegay kaliya muuqaal inaan u duubo ee balanta aheed aan balantaas aan uga baxay kaliya ee sheekada taagneed oo waliba diyaar aan u ahay inaan raali geliyo oo aad aragteen inaan raali gelinaayay muuqaalo badan aniga aan u diray wiilo dad badan oo gudiyaal aan u xil saaray arrintaas ay u dhaxgalaan markii aan ka dhaadhiciyay dhalinyaro badan arrinta ay soo faragasteen iyaga qaarkood oo isqabsaday kadib xoriyadeedan dib u helay waa gartay dadka caawa ku xiray oo runtii meesha joogta ka kaxeeyay ee gaadiidka watay ma hubeysnaayeen ma askar bay ahaayeen maxay kula ekaan dhalinyaro caadi ahaayeen askar ma ahayn dhalinyaro caadi ahaayeen waxay wateen bistooladay wateen aniga meel ay ka imaadeen ma sheegi karo wajiga taas fiican uma arkin markii aan qalqalay oo aan xabsaday ee qofka sigiliyeen laakiin waxaan isday caawa ku dili rabaan wax jirdil oo lagu geystay ma jirin maya kaliya waa jaakada jag iga siiyay midna baakoorto jag iga siiyay markaas waa dhacday waa dhacay mid kale taa wuxuu yirnay ninkan dhibaato u geysanin kaliya inaan su'aalo weydiino meeshan u keenay haddii anaga waxaan karna aan ka wanaano meeshan noo seexdo waa gartaageeraasha marka wiilo maxaa leedahay marka ugu dambeyn taageeraasha wiilo waxaan leeyahay aniga dhibaato ay geysanina aniga wiilo waa walaashayda waan jeclahay oo qof aniga igu weyn أنا حماية مرة واحد كسر كان عايزنا أصلا يعني ديار واحد لكن أنا نفسي يلا دباتين أنا قف دورة كتير نمي قف نعكر من جرنا نمي وحنا سكاين الشعب يلا دباتين كان يلا دباتين جوانا هو قرتر والوجرة قرتر والوجرة وحنا رالك هاي واحد بيكون عايزنا أصلا baabajay adu ma siin yahay saaxiibayaal saaxiibkii baabajay waxa oo runtii ka hadlay dareenkiisa iyo caaw wixii ku dhacay dabkan joognaa hadda uu nala joogaa uu nala baashaalaya shaah uu nala cabaya waxaan rajaynaynaa in arrinta u dhaxaysay isaga wiil dhameeyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku xirayaa muuqaalka sheer garay la wadaag saaxiibadaada adigoo tala siinaya baabajay iyo wiilo si arrinta loo dhameeyo YouTube ka baabajay ku soo biiro si raac oo ma santiin salaamu calaykum